Beyle oo kashifa lacago la musuqmaasuqay shacabka ayuu runta u sheegay mushaaraadka ciidanka oo bishan la lunsaday iyo xogihii ugu dambeeyey sheergaree muuqaalka warbixintan ku eegaynaa xogo la xiriira wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo kashifay lacago in la musuqmaasuqay shacabka ayuu runta u sheegay xogo qarsoona ayuu banaanka keenay waxa uu sidoo kale tibaaxay in la lunsaday bishan mushaaraadkii ciidamada oo aan waxba loo hayn xogihii ugu dambeeyay arrintaasi la xiriira xafiiska wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo dhaleecayn loo jeediyey iyo arrimo kale ayaan muuqaalkan ku eegaynaa. Marka hore si aan faahfaahinta u gudagalno sheergareeya muuqaalka ku faafiya guruubyada oo la wadaaga saaxiibadeen. Waxaa sidoo kale naga xusuusina in leegtii sheerta muhiim ay noo tahay leeg la dhac muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. Waa hagaag aan ku horeyno wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu si weyn uga hadlay arrimo jiray kaas oo ku qatamay in la lunsado lacago loogu talagalay mushaaraadka ciidamada, waxaana wasiir Beyle uu kashifay xogo hoose iyo lacago la musuqmaasuqay isagoo sheegay in mushaaraadkii ciidamada bishan aan loo haynin. Waxa uu yidhi waxaa la lunsaday mushaaraadkii ciidamada ee bishan, innagu horey waxaan uga taxadari jirnay in ciidanka mushaaraadkooda ay waayaan iska daa bil ee waxaan ilaalin jirnay bilaha kale ee sii xiga bishaasi. Haddase waxay u muuqataa in arrintii sidii hore aysan ahayn oo bishan mushaaraad ciidamada aan loo hayn, ayuu yidhi wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Beyle ayaa ka mid ah xubnihii sida weyn u taageersanaa madaxweyne Farmaajo, waxaana xilligii doorashada kursigiisa dagaal weyn u galay xubno mucaarada kuwaasoo ugu dambeyn kursiga ka xirtay. Xubnahaasi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo si weyn uga shaqeeyey in Beyle kursigaasi la dhaafsiiyo. Walow wasiir Beyle hadda uu ka mid yahay xubnaha siyaasadda indhaha ka eeganaya balse aan wax gooniya xilligan ku dhex lahayn. Waxa uu sheegay in musuqmaasuqa ka dhex socda Soomaaliya ay kow ka tahay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, taasi oo uu ku sheegay in ay ka shaqaynayso lacago la lunsado iyo sidoo kale lacagihii abaaraha loogu talagalay oo iyana ay lunsadeen. Wasiir Beyle shacabka runta ayuu u sheegay, waxba kama uusan qarin. Waxa uuna yidhi shacaba waa inaad ogaataan dowladdu waxyaabaha ay samaynayso, xogaha jira sidii inagu aan u shaqaynaynay iyo sidoo kale sida ay hadda wax u socdaan. Xafiiskii hore uu u joogay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle hadda waxa uu noqday mid lacago lagu lunsado sida isaga uu caddeeyey, waxaana xogihii ugu dambeeyay ay tibaaxayaan in Beyle iyo xubnihii la safnaa ee xafiiska ka shaqaynayay gebi ahaanba la ruqseeyey oo hadda xubno cusub la qaatay si loo musuqmaasuqo lacagahaasi ciidamada, ayuu runta u sheegay. Sidoo kale waxa uuna ku yidhi bishan wax mushaara laydinma hayo sida xogta aan ku helnay oo akoomadii waa faaruq, waxaana wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu ka mid ahaa xubnihii sida weyn uga dhaban adeegay in mushaaraadka ciidamada la baxsho. Iyadoo xaalado adag dalka uu soo maray ayuu haddana ku qanciyey in mushaaraadka ciidamada mar walba ay helaan, isagoo sidoo kale ka mid ahaa xubnihii ka shaqaynaya amniga doorashada. Sidoo kale Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu ka mid ahaa xubno si weyn ugu soo dhaban adeegay xilliyadii kala duwanaa ee dalku uu soo maray, balse hadda oo uu ka mid yahay xubnaha siyaasadda bannaanka jooga ayaa waxa uu sheegay inay jiraan xogo kale oo soo baxaya iyo sidoo kale in dowladdu ay qorsheynayso in la lunsado lacago kale oo hor leh. Wasiir Beyle hadda waxa uu u muuqdaa in arrimaha uu bannaanka keenay ay yihiin kuwa iska cad, maadaama wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasaaradaha maaliyadaha maamul goboleedyada ay ahaayeen kuwo dhowaan isku dhacay lacago darteed, waxayna ku qanci waayeen wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyada in lacagaha loogu talagalay abaaraha oo bankiga adduunka ugu deeqo Soomaaliya in si siman loo qaybsado. taasi ma aysan dhicin oo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay hunguriyeyso lacagahaasi, walow ugu dambeyn shirkii wadatashiga qaran lagu soo eedeeyay madmadowgii jiray, balse wasaaradaha qaarkood ayaa weli qaba in arrintu ay taagan tahay oo xasaradaasi aysan degin. Arrinta u dhexaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ayaa ka bilaabatay 100 milyan oo lacag loogu talagalay abaaraha ahayd. wasiir Beyle markaasi waxa uu ka hadlay arrinta jirtay, xogo jira ayuuna bannaanka keenay. Hadda ayuuse mar kale ka hadlay arrintaasi isagoo sheegay in weli bahashu ay qasan tahay, haddase ay ciidanka mushaaraadkooda weynayaan bishan ayna u dulqaadan doonaan mar kale iyo in mushaaraadkooda ay waayaan. Beyle oo kashifa lacago la musuqmaasuqay shacabka ayuu runta u sheegay mushaaraadka ciidanka oo bishan la lunsaday iyo xogihii ugu dambeeyey sheergaree muuqaalka shacabka ayuu runta u sheegay xogo qarsoona ayuu bannaanka keenay. Waxa uu sidoo kale tibaaxay in la lunsaday bishan mushaaraadkii ciidamada oo aan waxba loo hayn,
xogihii ugu dambeeyay arrintaasi la xiriira xafiiska wasaaradda maaliyadda soomaaliya oo dhaleecayn loo jeediyey iyo arrimo kale ayaan muuqaalkan ku eegaynaya. marka hore si aan faahfaahinta u gudagalno, sheergareeya muuqaalka, ku faafiya guruubyada oo la wadaaga saaxiibadeen. waxaa sidoo kale naga xusuusina in leegta iyo sheerta muhiim ay noo tahay. leeg la dhac muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. waa hagaag, aan ku horeyno. wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa waxa uu si weyn uga hadlay arrimo jiray kaasi oo ku qatamay in la lunsado lacago loogu talagalay mushaaraadka ciidamada. waxaana wasiir beele uu kashifay xogo hoose iyo lacago la musuq maasuqay, isagoo sheegay in mushaaraadka ciidamada bishan aan loo helin. waxa uu yidhi waxaa la lunsaday mushaaraadkii ciidamada ee bishan. innagu horey waxaan uga taxadari jirnay in ciidanka mushaaraadkooda ay waayaan, iska daabil ee waxaan ilaalin jirnay bilaha kale ee sii xiga bishaasi. haddase waxay u muuqataa in arrintii sidii hore aysan ahayn oo bishan mushaaraad ciidamada aan loo helin, ayuu yidhi wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa ka mid ah xubnihii sida weyn u taageersanaa madaxweyne farmaajo, waxaana xilligii doorashada kursigiisa dagaal weyn u galay xubno mucaarada, kuwaasoo ugu dambeyn kursiga ka xirtay. xubnahaasi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble, kaasi oo si weyn uga shaqeeyey in beele kursigaasi la dhaafsiiyo. walow wasiir beele hadda uu ka mid yahay xubnaha siyaasadda indhaha ka eeganaya, balse aan wax gooniya xilligan ku dhex lahayn. waxa uu sheegay in musuq maasuqa ka dhex socdo soomaaliya ay kow ka tahay wasaaradda maaliyadda soomaaliya, taasi oo uu ku sheegay in ay ka shaqaynayso lacago la lunsado iyo sidoo kale lacagihii abaaraha loogu talagalay oo iyana ay lunsadeen. wasiir beele shacabka runta ayuu u sheegay, waxba kama uusan qarin. waxa uuna yidhi shacaba waa inaad ogaataan dowladdu waxyaabaha ay samaynayso, xogaha jira, sidii inagu aan u shaqaynaynay iyo sidoo kale sida ay hadda wax u socdaan. xafiiskii hore uu u joogay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beele hadda waxa uu noqday mid lacago lagu lunsado sida isaga uu caddeeyey. waxaana xogihii ugu dambeeyay ay tibaaxayaan in beele iyo xubnihii la safnaa ee xafiiska ka shaqaynayay gebi ahaanba la ruqseeyey oo hadda xubno cusub la qaatay si loo musuq maasuqo lacagahaasi ciidamada, ayuu runta u sheegay. sidoo kale waxa uuna ku yidhi bishan wax mushaara laydinma hayo sida xogta aan ku helnay oo akoomadii waa faaruq. waxaana wasiir cabdiraxmaan ducaale beele uu ka mid ahaa xubnihii sida weyn ugu dhaban adeegay in mushaaraadka ciidamada la baxsho. iyadoo xaalada adag dalka uu soo maray ayuu haddana ku qanciyay in mushaaraadka ciidamada mar walba ay helaan, isagoo sidoo kale ka mid ah xubnihii ka shaqaynaya amniga doorashada. sidoo kale cabdiraxmaan ducaale beele waxa uu ka mid ah xubno si weyn ugu soo dhabar adeegay xilliyadii kala duwanaa ee dalka uu soo maray, balse hadda oo uu ka mid yahay xubnaha siyaasadda bannaanka jooga ayaa waxa uu sheegay inay jiraan xogo kale oo soo baxaya iyo sidoo kale in dowladdu ay qorsheynayso in la lunsado lacago kale oo hor leh. wasiir beele hadda waxa uu u muuqdaa in arrimaha uu bannaanka keenay ay yihiin kuwa iska cad, maadaama wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasaaradaha maaliyadaha maamul goboleedyada ay ahaayeen kuwa dhowaan isku dhacay lacago darteed. waxayna ku qanci waayeen wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyada in lacagaha loogu talagalay abaaraha oo bankiga adduunka ugu deeqa soomaaliya in si siman loo qaybsado. taasi ma aysan dhicin oo wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in ay hunguriyeyso lacagahaasi, walow ugu dambeyn shirkii wadatashiga qaran lagu soo ildeeyey madmadowgii jiray. balse wasaaradaha qaarkood ayaa weli qaba in arrintu ay taagan tahay oo xasaradaasi aysan degin. arrinta u dhexaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ayaa ka bilaabatay 100 milyan oo lacag loogu talagalay abaaraha ahayd. wasiir beele markaasi waxa uu ka hadlay arrinta jirtay, xogo jira ayuuna bannaanka keenay. hadda ayuusan mar kale ka hadlay arrintaasi, isagoo sheegay in weli bahashu ay qasan tahay, haddase ay ciidanka mushaaraadkooda weynayaan bishan ayna u dulqaadan doonaan mar kale iyo in mushaaraadkooda ay waayaan.